gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha ka mid ah mas'uuliyiinta aan la kulannay arrinta ugu weyn ee aan gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha kala hadlay waxay ahayd dib u habeyntii ku socotay shaqaalaha dawladda wuxuu ka warbixiyay hawlgalka ay muddada socday ee kala hufka shaqaalaha dawladda wuxuuna sheegay ilaa dhowr iyo afartan goobood inay tageen shaqaaluhu markii ay hawsha bilaabayeen wuxuu ahaa shaqaalaha dawladda 16,533 bayaan shaqaalaha dawladda markii hawsha bilaabayeen laakiin markii siyaalo badan loo kala hufay 14,500 baa noo soo baxay markaa meesha waxaa ka baxay 626 inta caag lagu yeero meesha way ka baxeen buu laakiin dad badan oo bayroolka ku jira oo aan laga saarin ilaa 200 dhimasho ah ilaa 95 ay yihiin dad dhuliyaal oo aan shaqayn warbixinta wuxuu nagu siiyay in ilaa 120 ay hawlgab yihiin oo dadka da'da ah 80 70 iyo 60 ka badan ay nagu siiyay wuxuu sheegay inay soo wadaan sharcigii hawlgabka si arrimaha loo maareeyo marka laga shaqaalaha dawladda meelaha ugu badan shaqaalaha dawladda ama hay'adaha ugu badan waxa kamid ah waxbarashada 6,000 iyo ilaa 500 oo dhow ayaa wasaaradda waxbarashada u shaqeeya wasaaradda caafimaadka kamid ah 2,000 ilaa iyo bad dad ku dhow 2,460 shaqaalaha u shaqeeya maaliyadda kamid ah 1,443 qof baa u shaqeeya hadda warfaafintoo kale iyana oo meelaha ku sii xiga 662 baa ka shaqeeya waxay imanka markaa gacanta ku hayaan xeerkii hawlgabka oo waqti dhow laga yaabo inuu hor yimaado inta marka laga yimaado waxaanu iyadana socdaal ku tagnay meesha leeyahay berbera saldhiga ama bayska horta dekada marka maalintii aanu tagnay maalintii ka horeysay meeshii la dhagax dhigay oo 400 mitir leeyahay waxa lagu sameeynayaa extension mooyaane wali DB wall wax kale kama qaban taas oo horeysa mareeya dekada arinta doodeer baan kala yeelanay goorma wax bilaabmaya xagga dekada wax markaa extension ka hadda leeyahay wala bilaabaya ka horeeya lagama qaban laakiin mareeya dekada waxaan barnaamij iyaga laftooda goorma wax bilaabaya rag qaar baa weydiiyay work plan ma idin keenay ay wax ku bilaabaya wuxuu noo sheegay maareeyuhu muddo 3 toddobaad ilaa 6 toddobaad inay qalabkii iyo logisticadooda iyo wixii bilaabayaan intaas uu noo sheegay iyagu waxay afka ka sheegeen in muddo 24 bilooda ay hawsha ku dhameynayaan xagga dakhliga sida wax isu bedeleen xogogaal uma aanu noqon waayo madaxdii DBO la gacanta ku haysay lama noqon meesha kale aan booqanay waxay ahayd meesha kale aan tagnay waxay ahayd arrinta saldhiga ama bayska militariga halka iyada hawl baa ka socotay arrimood muhiim ah oo ay iyagu ka qeynayeen oo ka cabanayeen laba arrimood muhiim ah yeelay oo la baara lahaa maamulka kaydka shidaalka hamaha ee ay la wareegeen labada arrimood waxay ahayd mid wuxuu ahaa dhul badan oo terminalka hamaha ah وملادات بريفة بقى للسيء قيل بدن بيكدجين وحلاها آد بعيدين ونوجتها حتى كيد كذا نحن تانجي خلاص سماية ملان كسماية ما هي تاسو بروبلم يا رب قيلين وهيستمي أرنت كلا عشان مشتي اللي وحيه وها شركة بريفة بقى هامش شدال أو كذا شدال ماشي اللي جسيء ودين عكلا كذا قبسن oo shirkado badan oo kala duwan oo dahabshiil kamid iyo Omar kamid iyo Telesom kamid tahay ayaa iyooyinka la siiyay su'aasha marka xiisaha leh meesha taagneed waxay yiraahdeen dowladda xiisaha leh meesha taagneed waxay ay iyaguna ay fact dareensanayeen waxay tan oo dawladdu gacanta ku hayso iyo shirkadahan oo private sida ay labada arrimood oo shalay kuwana laga wareejiyay shirkadii private ka oo gacan dawladda soo galiyay xaggan shirkadaha labada arrimood sida ay isula jaan qaadayaan ay u tartami karayaan baa mushtarahan xagga ganacsiga ugu tartamayaan iyo ifan xagga kale ra'iisan gareeyay leeyahay in shidaalka weyn dawladdu gacanta ku hayso la arrimaha soo soo wada soconayaan dood xiisaba meesha ka taagnaayay runtii hawlihii intii aan qabqabanay intaas ay ahayd aad iyo aad u mahadsan salaam